السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ma ogtahay in maalin walbo dhalinyaro Soomaaliyeed qaybo kala duwan oo bulshada ah ay shilal ku galaan wadooyinka magaalada Muqdisho iyo qaybaha kale ee Soomaaliyaba. Waxaan rabaa bulshada inaan ku baraarujiyo in xanuun qarsoon dadku waxay yaqaanaan sokor, dhiig kar, jadeeco, malaria, laakiin waxaa jira waxyaabo kaleeto oo dadka u dhiban yihiin ee bulshadana aysan ku baraarugsaneen. Waa shilalka. ururka dhakhaatiirta lafaha Soomaaliyeed wacyigelinta wuxuu ugu talagalay inuu dadka ku baraarujiyo una muujiyo culayska ay leedahay dhibaatooyinka maalin walba ay arkaan. Maalin ma jirto dhakhaatiirta lafaha aysan la kulmin bukaano soo jaba, bukaano shil mooto, shil gaari, shil bajaaj, shil soo galay. Waxaan rabaa marka dadka inaan ku baraarujiyo waxa ugu badan ee horseeda shilalkaas waa laba shay. Taxadar darro qofkii ka dhacday, sida asiga oo gaarigii wada, asiga oo mootadii wada ama bajaajtii wada, inuu telefoon iska isticmaalayo, inuu meel kala fiirinayo, inuusan taxadar muujinaynin, inuu qayilayo, inuu dhibaatooyin kaleeto oo micnaha mas'uuliyad darro ku jirto uu sameynayo. Taxadar darro. Midda labaadna waa speedkii ama xawligii gaariga ama mootada uu ku waday inuu kordhinayo. Dadka ugu badan ee u nugul shilalka waa dadka wadada hareeraheeda socda iyo dadka baabuurta ama mootooyinka wada. Soomaaliya waxaa sanadkii ugu dambeeyay aad iyo aad u soo batay mootooyinka laba lugaaleeda. Mootooyinkaasna waxay leeyihiin waxyaabo badqabka ku xiran oo ay tahay qofka wada iyo dadka saaran inay sameeyaan. Number 1, xawliga lagu socdo in uu aad u badneen. 2, 30-40 uusan ka badnayn speedka. 2, dadka saaran inay kooban yihiin. Kulama dadka saaran ay badan yihiin, koofi loogu talagalayo helmetka lahaay aysan xirnayn, speedkan uu bato, halis way badan tahay. Waxaa marka bulshada kula dardaarmaa ama mooto saarnaaw ama gaari saarnaaw ama wadada hareeraheeda mar, ilaali badqabkaaga, ka taxadir waxyaabaha badqabkaaga ku jiro. Gaariga haddii aad saaran tahay si tartiib u wad, suunka gaariga loogu talagalay xiro. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO wuxuu ogaaday ama cilmi baaris la ururiyay wuxuu ku ogaaday in sanadkii 2021 dad ka badan 3,000 oo Soomaaliyeed ay u dhinteen shilal. 100,000 oo qofoodna 20 ka mid ah ayaa shil u dhimatay. Inta u naafowda, inta maskaxiyan dhaawac soo gaara, inta shaqo ku waysa, inta qoysaskooda dayac ku imaado dhaawaca qofkaas gaaray daraadeed ayagana ma cadda. Sidaa daraadeed ururka dhakhaatiirta lafaha Soomaaliyeed wuxuu bulshada qaybaheeda kala duwan ku baraarujinaa in badqabka wadooyinka lagu wada dadaalo, qof walbana mas'uuliyadda dhinaciisa ka qaato. Dhalinyarada darawalada ee baabuurta, mootooyinka ama meelaha maraya ayagana taxadarkooda muujiyaan. wax kasto oo halis gelin kara nafsadaada iyo rakaabka qofka kula socdana aad ka taxadartid. Assalaamu calaykum.